ma dareemaysaa culays caloosha ah iyo dibro joogta ah. Calool istaagu inta badan waa dhibaato dad badan haysata. Maanta waxaan baran doonaa cuntooyinka fiber-ka leh sida ay xalka ugu yihiin dhibaatadan calool fadhiga. Fiber-ku waa qayb muhiim ah, waliba muhiim waa saxarada. Waxay u shaqeysaa fiber-ka lagu sheegay wax kale maaha, waa xaaqin oo kale. Wuxuu nadiifinayaa mindhicradaada, wuxuuna ka soo saarayaa qashinka. Calool istaagu wuxuu inta badan yimaadaa marka saxaradu ay qallayl noqoto, waliba ay ku qalasho mindhicirka dhexdiisa. taasna waxaa inta badan keeni kara biyo cabid la'aanta. Saxaradu inay qalasho biyo cabid la'aanta ayaa qayb weyn ka ah. Fiber-ka wuxuu inta badan sameeyaa biyaha ayuu wuxuu ku badiyaa u soo jiidaa dhanka saxarada. Marka taas ayaa keenaysa in saxaradu ay jilcado. Macnaha fiber-kaagu marka fiber-iskaagu ama cuntooyinka fiber kale aad cunto, saxaradii way qoyaysaa. Markay saxaradu qoydana waxaa imaanaysa in saxaradu ay jilcado. Haddaba waxaan baranaynaa maanta waxyaabaha inta badan fiber-ka laga helo ee caloosha jilciya. Oats ama boorashka oatska loo yaqaano waa inta badan waxa uu leeyahay fiber la dhaho beta glucan, kaas oo jilciya saxarada caloosha fadhidana la dagaalama. Labo waxaa ku xigta digirta. Digirta waxaa la yiraahdaa waa boqorada fiber-ka dabiiciga ah. Hal waqti inaad cunto digir maalintii waxay ku siinaysaa kala bar fiber-kii aad u baahnayd maalintii oo dhan. Macnaha hal waqti inaad digir ama cambuulo sida u taqaan inaad cunto waxay keenaysaa in kala bar fiber-kii maalintii aad u baahnayd inaad bahaysato. Waxa kale oo muhiim ah marka fiber-ka laga hadlayo in la soo qaato qudaarta mid kamid ah waxyaabaha inta badan fiber-ka laga helo waxaan ugu horeeya spinach-ka ama koostada waxa la dhaho. Koostada waxay hodan ku tahay magnesium iyo fiber. Labadan maado waliba magnesiumta waxay ka caawinaysaa mindhicradaada murqahooda inay dabcaan, kadibna ay fududaato in saxaradii ay socoto. Sidoo kale fiber-ka ku jirana koostada waxay jilcisaa laftigeeda, saxarada ayay jilcisaa. Waxyaabaha miraha muhiimka u ah sidoo kale fiber-ka oo aan eegayno waxaa kamid ah tufaaxa waa mid kamid ah qudaarta ugu fiican ee caloosha fadhida ama constipation waxa la dhaho loo isticmaalo. Tufaaxu wuxuu leeyahay maado la yiraahdo pectin. Maadadan waa fiber waxay ka caawinaysaa marka bakteeriyada ama macdanta faa'iidada u leh caloosha inay kor u qaado, kadibna calooshii ay jilicdo. Intaas waxaan hadda kaga hadalnay oatska, laba digirta, koostada iyo tufaaxa. Intaas kaliya kuma koobnaan doono. Waxaa kamid ah waxyaabaha fiber-ka laga helo bocorka waa saaxiibka caloosha. Wuxuu leeyahay fiber, wuxuu jilciyaa saxarada, wuxuu yareeyaa dibriyada. Marka hadiiba aad bocor ku quraacato, bocorka waliba qaabka loo karinayo ku kala xiran tahay. Bocor hadaad ka dhigato meesha hadaad laga yaabo dalacbiyaasha inaad ka cunayso, hadaad bocor uga bedelato calooshaadu waa ay jilcaysaa. mooska waa uu noocyo badan yahay. Mooska maanta aan ka hadlaynana maaha moos kale. Mooska bisil ee jaalaha noqday ee dhibcaha madowga ah ee tirada badan yeeshay waa muhiim sababtoo ah mooska noocan ah waxaa ku badan fiber-ka, waxa uuna jilciyaa caloosha. Waxaa kale oo muhiim ah inaan ogaano bataatiga ama sweet potato waxay dhahaan. Sweet potato ama bataatiga sida u taqaano mid kamid ah waxyaabaha aan lagu baraarugsanayn ee caloosha jilciya ayuu kamid yahay.